السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabay inaan intaa yar maanta maaragtay yaroskeera degdega baan kusoo tuuray. Waxaan arkayay meeshii maxaa dhahay wadankii Somaliland baan arkayay madaxweynihii hore Muuse Biixi oo maxaa dhahdayay rasaas lagu furay. rasaasta waxaa la yidhi horta kolba war baa soo baxaya iyo dad hanjabaya. marka horta askartaas dee waxay uga jeedeen in ku furaan madaxweynihii hore rasaasta waxay uga jeedeen ilaah baa og iyo kolle waa la sheegayaa. qaarna waxaan ka arkay lalahaa waa la xidhay labadii nin mise laba nin mee saddex askari wax angaasa bay haayeen waa la xidhaa la yidhi. So waxa waqtigan xaadirka Somaliland waxay u eg tahay meel nin waliba jeebka uu ku sito siduu uu maxaa dhahdaa ugu noolaan lahaa wadanka gudihiisa oo ixtiraam iyo kala dambeyn iyo maxaa dhahdaa qadar inaanay meesha ka jirin. aniga dowladdan imika xukuumadda imika joogta dee maxaa dhahdayay waa indhahaanu kala soconnaa, indhaha lagala socdaa. waxa weeye wax xukuumad aada u jilicsan weeyaan oo dee fariino ku gudan tahay siday tahay haddana waa la garab taagan yahay. iyadoo 20,000 oo khaladaad aan arkayno ay haddana la aamusan yahay oo indhaha wax laga eegaya. marka maxaa dhahdayay reer Somaliland waxaan leeyahay cagaha dhulka inoo dhiga. meesha mashqacba inagu socda. waxaa la rabaa wadankaa dhan inuu burburo. waxaa la rabaa wadankaa dhan inuu qabiil iyo lasoo qabsado habar. wadanka intaas oo sano lagu soo tabacayay inuu mar qura inagu isku jiisano waa laga qurux badan yahay. aada iyo aad baa loogu qurux badan yahay. marka waa in laysu samraa. waxaa la yidhaha kaadi badani waa lagu galbadiyaa baa layidhi. aynu samirno. intaasoo sano ayaynu usoo samraynay ixtiraaf iyo waxaynan garanay inaynu sugayno. saynu 35 sanaba usoo samraynay 5 sano uu fadhiyayo ninkan iyo xukuumaddiisu waa inaynu u samirnaa. waa inaynu xadhka biro isku xidhnaa. waayo xukuumaddani maaha xukuumad 100% daacad u ah wadanka markaynu runta ka hadlayno. xukuumaddan waxay la shaqaysaa ummado kale in ognahay bay la shaqaysaa. ma fahante. marka intuu wadanku inaga burburi lahaa aynu maanta ground zero kasoo bilaabi lahayn haddana yaa aynu dhabarkii u ridino, aynu u samirno, aynu cagaha dhulka u dhigno. buuqan iyo qayladana ha la iska daayo. xukuumadduna ha kasoo jawaabto sababaha madaxweynihii hore halkaa loogu rasaaseeyey. xukuumaddu dee ha barato qaynuunka iyo kala dambeynta iyo sharciga iyo waxa dastuur ku dhigay ha barato. oo dadkan wada bila akhlaaqda meesha dhigatay aad moodid inay geed ku xidhnaayeen oo dadna magaalada lagu soo daayay waxa barto. dadkan wada waalan ee waxay tiri waxa qabtaan ee halkay kasoo urursa. xukuumaddu waa inay dadkan samcadooda dilaya ee maxaa dhahdayay aad moodiin I don't know dee waxaan ku sheega ma garanayo aan waxba baranin dee waa inay iska qabataa. haddii kale samcadda ka dilaysa. iminka waa la samraya laakiin waxaa jirta qof aan samirkaasba u dulqaadanin oon isaguna gacan ka hadal bilaabaya. bilaadanku isku wada mid maaha. inkastoo mucaaradkii waxarka saa isugu hahayaan dadkii saa isu hahayaan oo la aaminsan yahay. waxaad tihiin
xukuumadda ugu nasiibka badan ee mucaarad aan lahayn, mucaaradku aanu kusoo kicin. idinkuna waxaad sameynayseen ilaahunba ogaa 7 sannadood markii maxaa dhahday aydan ina dhaafay eed waddankaba gilgisheen ee waxaad doontanba ku samayseen. wax allaala xoolaha dhan ma jirto. haddana sidaa tahay xalay laga dhalay baa laga noqdo, waa laydiin dhiiba waxa ladhahaye bal wada sidaa. haddana inta gacanta laydinku saarayba haddana waxaa la arkayoo dhan baa sameynaysaa. marka laakiin anagu waddanka idiin burburin mayno, waanu ilaashanaynaa. reer Somaliland waddanka hala ilaaliyo, gacmaha la isqabto. waxba 4 sano unbaa hadhay, 4 sanona waa 4 cishay noqonaysaa ciddii ilaahay gaadhsiiyo. 4 sano aynu iska aamusno, aynu iska samirno, hanjabaadan iyo buuqan hala joojiyo, gacmahana hala isqabsado, waddankan hala ilaaliyo 4 koona waddanka halaga ilaaliyo. ka xuduudka fadhiya iyo ka magaalooyinka dhex fadhiya iyo ka qurbo jooga ah iyo ka qolqo jooga ah intaba waddanka xil buu inaga wada saaran yahay, waynaynu ilaalinaa. intaas ayaan kusoo kordhinay, maxaan idinla soo wadaagay. waa in maxaan dhahdaa la iska ilaaliyaa, qori iyo buuq iyaan la qaadanin. buuq no, waddanka aynu ilaashano. reer Somaliland maskaxdu ha shaqayso. maca salaama.